Caasimada dowladda Hirshabelle Jowhar ayaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay ku qalin jebinayeen 150 arday oo baratay xirfado kala duwan oo gacanta ah, kuwaas oo ay iska kaashadeen hay'adda Norwegian Refugee Council (NRC) iyo sidoo kale Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Hirshabelle. Munaasabadda qalin jebinta ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee dowladda Hirshabelle, maamulka NRC, maamulka degmada Jowhar, mas'uuliyiin ka socotay ururada bulshada rayidka ahi, maamulka shirkadda Shabelle Energy, madaxda Hana Academy farceeda Jowhar, gudoomiyaha ururka haweenka Hirshabelle iyo marti sharaf kale. Maxamed Saciid oo ah xiriiriyaha mashruucan farsamada gacanta ayaa markaasi ugu horeyn madasha ka hadlay isagoona sharaxaad ka bixiyay ujeedada barnaamijka kan muddada uu socday iyo habka ardayda loogu soo kala xulay deegaanada kala duwan iyo sidoo kale IDBM-yada degmada Jowhar. Waxa uu markaasi xusay in ardaydu ay soo mareen tababar xirfadeed oo isugu jira cilad bixinta korontada, farsamada cilaansaarka, kombiyuutarka iyo sidoo kale casriyeynta beeraha. waxaa laga soo kala xulay afar meelood, afar goobood oo kala ah tuulada Konko iyo tuulada Baraki iyo laba IDB camp oo kala ah campka Sheekh Ooyay IDB camp iyo campka Tawfiiq IDB camp. laga soo kala xulay ardaydaas waxay gaarayeen 150 arday, waxay wax soo baranayeen muddo 7 bilood ah. todobadaas bilood markay soo dhameysteen waxaa loo sameeyay 2 bilood kale oo waxa loogu daray oo practical ah, internship ah, oo aan ku xiriirinay xirfadahaas dadka ay soo barteen ardayda kompaniyada magaalada ka shaqeeya aan ku xiriirinay oo practical 2 bilood ah siiyay. practicalkaas markuu u soo dhamaaday kadib hay'adda waxay siisay qof kasta waxa la siiyay lacag uu ku bilowdo ganacsi uu isagu u leeyahay si muxuu ahaa shaqo abuur ugu noqoto. intaas waa mashruuca iyo hawsha la soo qabtay hordhiciisa. mashruucani waxaa qayb weyn ka ahaa oo hay'adda aad ula shaqeynayay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Qaar ka mid ah marti sharaftii ka hadashay munaasabadda ayaana carabka waxa ay ku adkeeyeen muhiimadda ay xirfadda tan gacanta ay u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed, iyagoona markaa tilmaamay in aqoonta noocan ahi ay yareyso shaqo la'aanta isla markaana dhalinyarada siinayso fursad ay ku abuuri karaan shaqooyin u gaar ah. saas darteed waxaan ugu dhiirigelinayaa farsamada maanta soo barateen inaad ka miro dhalisiin sida madaxda hay'adda NRC ay noo sheegtina in waliba la siiyo dhaqaalo aad ku sameeysanaysiin wax qabad aad ku sameeysanaysiin. waa fursad kale weyn aan la heli karin dhalinyartina ku nool gobolkan, khaasatan degmooyin fara badan oo Hirshabelle aysan helin, guud ahaan Soomaaliya aysan helin maanta in farsamo gacanta lagu baro waliba qarashaad lagu sii daro lagu dhaho haye wax awoor ku sameeyso. marka waxaan idinku dardaarmayaa fursaddaas aad hesheen inaad ka faa'iideysataan, bulshadiin ugu faa'iideysaan, dhalinyartii kale oo walaalihiin oo ku nool degmada Jowhar iyo tuulooyinka hoos yimaadeen inaad gacan qabatiin si ay igana birito ay u noqdaan ku wax soo saaro. magacayga waa Maxamed Axmed Maxamed, waxaan ka tirsanahay ardayda 150ka arday ay soo tababartay hay'adda NRC. waxaan ahay xirfad leh oo bartay kulliyadda oo bartay kombiyuutar. hay'adda NRC waxayna bartay afar farsamo ah. afarta farsamo waxaa ka mid ah kulliyadda beeraha iyo korontada iyo kombiyuutarka iyo maxaa kale cilaansaarka. ani waxaan ahay arday ka mid ah ardayda oo bilcamalka magaalada joogto. hay'adda NRC ayaa noo timid waxayna na shaqaaleysiiyeen, waxayna bartay xirfado kala duwan. waxaa ka mid ah waxaan bartay kombiyuutar asal bilcamal ayaan, laakiin haddeer waxaan furtay madbacad lagu daabaco sida warqadaha maxaa la dhihi jiray sawirada taysarada. ayaan ugu faraxsanahay hay'adda NRC, waan aaga mahad celinaynaa anigoo ku hadlayo afka ardayda. waxaan jeclahay waxbarashadan maanta aan baranay inaan ka faa'iideysano ee noqonin mid meesha laaga tago. waxaan leeyahay mar labaad hambalyo oo ku maasantiin juhdiga aad ku bixiseen, waan idinku hambalyeynaa himilada iyo hadafkii aad leedahay ee aad gaarteen. sidoo kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo Engineer Shariif oo ballan qaaday inuu shaqaaleysiin doono ardayda
soo baratay korontada engineer ma santahay waxaana yani ka rajaynaynaa insha Allah ballanqaadkaas shirkadda Shabeelle Daatiin inaad ka dhaweyn doontaan. Wakayaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda Hirshabelle Injineer Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdi ayaa markaasi ka hadlay iskaashiga dhow ee ka dhaxeeya wasaaradda iyo sidoo kale hay'adda NRC isagoo markaasi xusay in barnaamijkan uu bilowday xilli hore isla markaana uu qayb ka yahay qorshayaal lagu horumarinayo xirfadaha dhalinyarada iyo dadka markaa barakacayaasha. waxaan halkan dhiirigelin u soo jeedinaa ardayda waxaan leeyahay farsamada in la baray meel cidla ugu tagina juhdi ayaa nila geliyay intaas oo bilood ayaa arday macallimiin ni taagnaayeen wax ni barayeen baraatigada ayaa nila siiyay haddana waxaa nilagu sii daray qarash ayaa nila siiyay oo waxa aad barateen inaad macnaha aad ku samaysataan marka jaaniskaas inaad beer dareenin oo waxa lacagta nila siiyay waxa aad barateen aad ku qabataan ayaan dardaarkaas sii lahay. Gudoomiyaha ururka haweenka Hirshabelle Marwo Fartuun Aadan Xeefo ayaa iyaduna markaa bogaadisay ardayda qalin jebisay kuna dhiirigelisay inay markaa bulshada ugu faa'iideeyaan waxa ay barteen isla markaana ay noqdaan kuwa kaalin muuqata ka qaata horumarka deegaanka. xaqiiqdii hay'adda NRC waxay haysaa shaqo aad u weyn intaanu dhalinyaro ah maxay hayto gabdho laga yaabo inay hooyooyin yihiin haddana inay fursad u helaan ayagoo gurigooda jooga inay shaqo abuur samaystaan. marka waxaan leenahay NRC waa idinkaga mahadcelinaynaa sidaad bulshada aad u garab taagan tihiin waxaan ognahay waxyaabahan badan ee aad ka qabataan jowhar haddii noqoleed hooyooyinka beeraleyda ah iyo maxay hayto ayuutooyinka aad dadka aad u qabataan aad kabka siisaan xaqiiqdii bulshadana wax badan ay ka faa'iideen. waxaan rabaa 150 kan dhalinyarada ah fursadan ka soo faa'iideystay 7 bilood soo fadhiyay in ay noqotaan maadaama lagu daray xitaa dada wax in la bara waxba la siinin oo la dhahaa xirfadan la baray shaqo tago laakiin inaka fursad kale oo ka dheer yahay in la siiyo waxa idin la dhahay shaqo abuurki waxba idin la siiyay marka waxaas inaadan iska dayicin waxa la dhahay maxay fadhigaaga in lagu soo adeego oo aad ka faa'iideyso waxa wax aad u fiican ma ahan marka inaad noqotaan waxyaabihii idin la dhiibay inaad kamare dhalisaan oo waliba wax soo saar aad la imaadaan markay gabadha bukiyeer furato oo cilaan saarka ay taqaano gabdho kale intay wax ka sii bartaan waa la ogaa bukiyeerada dad badan isugu imaado gabdho badan isugu imaado marka waxay noqonayaan gabdhihii kalena inay ka faa'iideystaan sidoo kale wiilasha kombiyuutarka oo kale hadda wiilka meeshaan inta ka sheegay inuu madbac furtay xaqiiqdii waa wax aad loogu faano oo wax weyn ah qofka inuu fursad markii la siiyo asaga isku day inuu sii sameeyo marka meeshiisa soo kale waxa ka faa'iideysana dad dhalinyaro ah ama ha noqdaan ama wiilal ama ha noqdaan gabdho marka in garbaha la sii qabsado. maamulaha shirkadda Shabeelle Energy Shariif Xasan Nuur ayaa madasha ku ballan qaaday in shirkaddu ay qaabili doonto qaar ka mid ah ardayda soo baratay xirfadda cilad bixinta korontada si ay uga mid noqdaan shaqaalaha korontada ee gobolka Shabeellada Dhexe. muddadii tababarka noo socday ardayda halkan ku jirto xagga korontada ku saabsan waxaan rajeeyaa insha Allah hadduu Ilaahay magaalada baahida ay ka qabtay xagga korontada xagga guryaha imbiyaatooyinka guud ahaan ku saabsan korontada inaad macnaha dabooli doontaan tuulooyinka aad gaarsiin doontaan rajeeyna insha Allah hadduu Ilaahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinaa hay'adda NRC intii tababarka uu socday mar waliba amba dhaqaale ha noqoto amba dhiirigelin ha noqoto in arday intaan ka kooban 150 ardaya ay magaaladeena Jowhar ay maanta ay noqdaan ardaydii kuwii soo bartay xirfadii gacanta sharafay noo tahay waxaan rabnaa insha Allah hadduu Ilaahay inaysan intaan ku ekaanin. duqa caasimadda Hirshabelle ee Jowhar ahna gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Mudane Cismaan Maxamed Muqtaar Cismaan Baari ayaana dhankiisa waxa uu bogaadiyay ardayda qalin jebisay wuxuuna u mahadcelisay dhammaan hay'adihii iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta tababarkan. farxad noo tahay tir intaan la eg ay wax bareen hay'addu waxaan leenahay aad u maasantiin runtii xirfadda waxa waaye waxa kaliya qofka bini aadanka uu ku noolaa karo ama ku noolaan karo waana heybad haddii mas'uul la qoday xataa heybad waaye dada farsamada magaciisii waxa ka dhigto inay xun tahay laakiin farsamada adduunka waxa waaye wax weyn ay ka tahay jaamacada loo galay yaan la yareysanin in wax aad baratiin waa fiican tahay inaad ka shaqaysiin waa fiican tahay inaad ku shaqaysatiin waa fiican tahay waxaan leenahay waxbarashadiinii ha noqoto mid
oo dhaqaaqdo aad ku shaqaysiin oo dadka iyo deegaanka ugu shaqaysiin aadan noqoninaha in gurigiina aad kula jirtiin. ugu dambeyn kormeeraha waxbarashada ee degmada Jowhar ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Hirshabelle Cismaan Nuur Dhaqane ayaa sheegay in barnaamijkan uu yahay mid lagu kubcinayo isku xirnaanta bulshada isla markaana lagu dhisayo adkeysiga dadka barakacyaasha ah ee ku nool degmada Jowhar. waxaan aad ugu faraxsanahay kriteeriyada loo maray oo runtii kriteeriya sax ah oo dadkii mudnaa meeshan maanta ay si fiican uga faa'iideysteen qaarkoodna ay sheegeen habka horumarka laga sameeyay. marka waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin fursadda qaaliga ah heshan iyo la beerdareynin in hore loo sii socdo la rabaa. waxaa kale intoon hambali u diraya agaasimaha Shabeelle oo runtii ballan qaaday ardaydii xirfadda korontada baratay dhammaantood inuu gabadh u shaqaaleysiinayo. waxaan leenahay hambali كبرياشة كلنا علينا كسر ضيدانو أرضي حرف الليال بروفيشنال ولا صار جود لسوقلي وما أنت لو سوق اللي جبت سالك النجوكت أيقن حرجة إنك كسر ضيدانو كبري الشباب. si kastaba ahaatee soo xirista tababarkan ayaa salka ku haysa kobcinta isku xirnaanta bulshada iyo hirgelinta xalal waara iyadoona barnaamijkan ay iska kaashadeen NRC iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Hirshabelle isla markaana uu maalgeliyay European Union.